وعنا ونكسن داودياشا قيمها قايها له كنت سوغن دولada dacladeeda waa anigo ah Nasarkiin Xaashi Nuure iyo Liibaan Aadan Cali waxaan ka sheekeyn doonaa maanta qisadana waxay noqon doontaa mid aad u la yaab ah haddaba qisada waxa ay ku bilaabanaysaa Leila waa gabar dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho waxay qayb ka tahay gabdhaha wax ku barta mid kamid ah jaamacadaha caasimadda ku yaala Leila waxa ay barataa maadada dhaqaalaha waxayna ku jirtaa darajada koowaad ee bachelorka Leila waxay isbarteen guuleed oo ay isku barteen meel xaflad ah oo isla caasimadda ku taala waxa dhex maray xiriirkaas oo gudbay ilaa heer jacayl Leila iyo guuleed muddo ayay wada socdeen oo xiriirkooda jacayl oo qarsoodi u ahaa sidii ay u wada socdeen kadib waxa ka war helay familka Leila waxa ay ka soo jeedaa famil dhaqaale ahaan aad u ladan halka guuleed uu ka soo jeedo famil xagga dhaqaalaha aad uga liita waxa uu dhameeyay sanad ka hor markay isbaranayaan Leila jaamacadda waxa uu raadinayay waqtigaasi in uu shaqo helo haddaba sidii sheekada ay sidaas u tahay qoyska Leila waxa ay u sheegeen inay mamnuuc tahay inay la socdaan guuleed oo ay rabaan in waxbarashadeeda ay hormariso oo ay nolosheeda horumar gaarsiiso aysan u ogoleen waqti xaadirkan nin dhaqaalihiisa aad u liito oo nolosheeda ku ciyaara sidaas oo ay tahay guuleed iyo Leila jaceylkoodii aadka u weynaa darteed waxay u suurtagelisay inay ka biidiidaan ama ay ka dhaga adeegaan hadalkii waalidka u soo jeediyay waxayna arintoodii ay ku heshiiyeen inay noqoto mid ay kaga meel dhaliyaan jaceylkooda oo ay isguursadaan guuleed waxa uu soo bandhigay qoyska inuu ka doonayo Leila laakiin qoyska waligoodba hal meel ayuu go'aankooda ahaa oo ah inaysan gabadhoodu u ogoleen guuleed gabadhii waxa ay sameysay inay u go'do jaceylkeeda guuleed sida ay sameeyaan badi gabdhaha Soomaaliyeed kama yal adkaada waalidiintooda hadaladooda guuleed iyo Leila waa isguursadeen way aqal galeen waxa u suurta gashay guuleed inuu Leila gurigooda u guuriyo hooyadeed iyo hooyadiis iyo walaalihiis iyo qoyskooda ay la degto Leila sanad in ka yar oo ay la nooleed guuleed waxa u suurta gali weysay in ay jaamacadda sii wadato maxaa yeelay jaamacadda waxa ka bixin jiray qoyskeeda nolosheeda guud ahaan waxa awal ka fargareyn jiray ama wax siin jiray qoyskeeda ay ku nooleed laakiin guuleed uu awoodi waayay kaliya quutuliyoonkooda ayuu dhib ku qabay taas laftirkeeda markii ay jaamacaddii ka hartay waxa ay suurta gelisay in xitaa quutuliyoonkii uu waayo guuleed Leila sida ay sameeyaan haweenka Soomaaliyeed badankood waxa ay awoodeeda isku geysay sidii ay u soo keeni lahayd amaba qoyska ay dhabar ugu ridan leedo ay u shaqeyn lahayd waxayna gurigeeda hortiisa la fariisatay inay ku iibiso ganacsi yar oo caanaha ay gadi jirtay galabtii halka habeenkii ay iibin jirtay cajiinka oo dadka Soomaaliyeed badankood ay ka iibsan jireen eeriyadaas degan nolosha maadaama ay sidaas ugu adkeed guuleed waxa uu raadinayay oo aad iskugu taxaluujinayay sid uu shaqo u heli lahaa oo qoyskiisa noloshan uga bixin lahaa in muddo ah kadib guuleed waxa u suurta gashay inuu helo shaqo aad u sareysa oo waxa uu qaadan jiray lacag dhaqaale ahaan ku dhow $1,500 arintu markay halkaas marayso Leilana ay aad u faraxsan tahay markaan ayna doonayso in marka nolosheeda uu wax badan ka bedelo saygeeda guuleed ayay sheekadu dhinac kale isku rogtay haddaba ma waxay noqon doontaa sidii annaga iyo Leilaba aanu fakareyno in nolosha ay si qurux badan isku bedesho mase sida guuleed iyo maskaxdiisa ku jirto si kale aan u wareejiyo Mr. Liibaan aad iyo aad u mahadsan tahay Nasarkiin Xaashi Nuure waxay ahayd Leila iyo guuleedba uu aad u soo jabhadeeyay ugu dambeyn waxa dhacday arin aad iyo aad lama filaan u ah kadib guuleed oo noloshiiba u qurux badnaatay Leilana ay isdheeysay waxaad gacanta aad ku dhigtay nolol aad u qurux badan iyo riyadii aad lahayd way rumoobi doontaa waxa dhacday noloshii oo hal mar dhinac kale isku bedeshay guuleed waxa uu sameeyay wax aanan marnaba Leila aqligeeda ana galaynin kadib markuu si surprise ah oo gabar kale u guursaday halkaasina waxa niyada uga jabtay Leila oo halkaasi ay ku ilmeysay ayada waliba ay soo martay nolol aad iyo aad u xanuun badan heer ay waliba familkeedii ay soo dayriyaan ama ay ugu soo go'do jacaylkii ay u qabtay guuleed laakiin waxay filanaysay maadaama ay asxaabtii iyo familkeedii oo waliba aad iyo aad u ladnaa ay bulshada dhexdeeda indhaha inay xirato dhabarkana ay u xirato in ay familkeeda ama ninkeeda ay quruxsato iyo ubadkii caloosha ay ku qaadaysay mar si u dhahdo hadhow ugu sheekaysa qisada ah ayadoo familkeeda ay ladan yihiin in cajiin iyo caano ay banaanka ku iibin jirtay balse markuu guuleed u dagaalay
nolol qurux badan meeshii ay ka sugaysay waxay surprise uu uga dhigay gabar kale oo markaasi uu asaga u guursaday maadaama hore loo yiri lacagtu waa ay bedeshaa bilaadanka waana sidaasoo liibaan oo badi ragga Soomaaliyeed ay sameeyaan maadaama gabdhaha ay la soo jabhadeeyaan noloshooda markay hoos taalo wax yar markay isbedesho ay sugayaan inay nolol fiican la qaataana ay xaasas kale aadaan ku soco dhacdada kale oo yaabka badan waxa ay tahay Layla ayadoo waliba aad u yaaban awooda in ay dhahdo maadaama aad noloshiiba aad cariiri igu gelisay ayadoo awalba cariiri igu jirtay halkaan noogu xir ma aysan yeelin ee waxay tala saartay Allah subhanahu wa ta'ala markaasi ay ku qanacday naagtii labaad oo markaas uu la soo guursaday Guuleed laakiin halka ay ka sugeysay nolol qurux badan in oo markaasi uu gacanta u geliyo ama guriga ay ku nooshahay uu ka bedelo waliba noloshii waliba ay banaanka habeenkii ay la fadhiisan jirtaan uu ka bedelo Guuleed balse waxa si kala dhacday oo aad u la yaab ah in gabadhii ay kala tageen haddana anada gabar kale uu guursaday waa mar kale iyo gabar kale hadda ma aha xaaskii ay ugu dul qaadatay Layla marka koowaad maadaama aysan haysan marjac dambe ama meel kale ay u laabato qoyskeedii ay ka soo go'day isaga kaliya uu ahaa indho iyo guri aadiya nasray hore waxa loo dhigi jiray sabraasadkiisa waa uu helaa Layla wali waxay ku dhabar adeegtay in ay familkeeda haysato oo waliba wax furiin ah oo wali uusan dhicin ay ninkeedii iyo ayadii noloshii cariiriga ah ay ku nooleed oo laba cariiri kale uga sii dhigay ee waliba ay kula sii noolaato Guuleed ugu dambeyn waxa dhacday in noloshii aad u quruxda badneed oo Guuleed oo gacanta ku dhigay oo ah in loo sii sareysiiyay darajadii markaasi shaqada uu ka shaqeynayay ee cariiri fara badan ay ugu imaado markuu gabadhii labaadna uu sii guursaday waayo waxa hore loo yiri nafsi ha gelin hadii kale uu ka soo bixi doona adile ku hela waxa ku dhacday Guuleed in shaqadii cariiri ay ku noqoto deetana hoos loo soo dhigay shaqadii darajada markaasi oo meel sare uu ka gaaray ugu dambeeyna waxa dhacday la tashi fara badan uu sameeyay waxa loo daamiyay in nafsi uu haysto oo ah culayska faraha badan leh ee soo koray shaqadiisii iyo dhibsiga faraha badan leh ee dadka ay dhibsanayaan in loo yiri waxa ku haysta ishii gabadhii aad familkeedii aad ka soo waday jaamacadeedii darta ay ku soo dhaaftay banaankana ay ku fadhiisatay ayadoo familkeedana ay ladan yihiin in aad xaqi ku lahayd wali ama reedi ay ku riyoon lahayd markaas ay ku riyoota aadan u rumayn Guuleed markii dambe waa uu isgartay waxa uu go'aansaday in gabadhii labaad uu guursado oo halka uu ku furo deetana uu dib ugu soo laabto Layla bal maxaa dhacay Nasray waxa uu dib ugu soo noqday Layla waxa uu ka raali galiyay qaladaadkii uu ka galay wuxuu garawsaday in dhammaan dambiyadii uu galay oo uu geystay oo indhihiisa ku arkay shaqadiisa hoos u laciiftay dhaqaalihii aad u gurmay isagoo ku soo noqoray bartiisa hore waxa uu go'aansaday in iyada uu mar kale dib u soo kaba nolosheeda uu raali galiyay jaamacadda ayuu dib ugu celiyay waxa ay halkaas ka sii wadatay inay jaamacadeedii dhameysato isagana shaqadiisii way u toostay waxa ay isku soo raaceen oo dalxiis u keenay mid kamid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee dalxiiska loo soo aaday ee wadamada Afrika bariga dhexe wadanka ma sheegayno sida ay inaga codsadeen dadka qasada noo soo gudbiyay awgeed dalxiis ay u soo baxeen marka noloshoodii way u toostay gabadhii jaamacadda gabagaba ay hadda u maraysaa waxayna tal ahaan u leedahay gabdhuhu hasamraan samra sidkiisa ma waaye Guuleedna waxa uu leeyahay nafsi ha gelin isagoo dibadaha yaalo dukaan ha ka iibsan sida shay aad gadanayso waa kugu dhici karaa ileen adigii midda kale la yaabka badan waxa ay tahay markii ay Layla noo soo warinaysa qisadan in ay tiri markuu Guuleed dib uu igu soo laabtay oo lugahayga hoos fadhiistay in raali galiyay waxaan iri si nolosha ay noogu noqoto mid bilow ah qaladaadka aan gashana waan ka raali galin doonaa waxa dib iigu celisaa meesha aniga adiga aan isku biraawno bilowgii hore jacaylkeen uu ka soo bilowday halkaasi oo badan labaad lagu soo kala galay noloshoodina way u qurux badnaatay halka caqabado fara badan oo ka gal Guuleed Layla laakiin hadeertan waa family qoys ah hadii isqaba waxa ayna leeyihiin 4 caruur ah ma sha Allah Layla waxa ay tala ahaan u soo weydiinaysaa gabdhaha ay qasooyinkaas oo kale ku dhacaan in ay bulshada u soo gudbiyaan tala ah waxa ay go'aansan karaan hadaba liibaan tala ahaan waxa u gudbin karnaa gabdhaha Soomaaliyeed aniga waxa leeyahay sida Layla kale gabdhaheena Soomaaliyeed sabra oo dulqaata waxaan hubaa mar oo inaad guuleysan doontaan waayo Ilaahay kugu talagelin noloshan cariiriga ah inaad ku jirtid mar oo waad ka bixi doontaa laakiin hablaheena Soomaaliyeed waxaan horan u maqlay haddana waliba ay taagan tahay in sabarkooda iyo dulqaadkooda uu aad u yar yahay laakiin sida Layla kale way ku jirtaa sabra oo dulqaata wad guuleysanaysaa anigana mid taa ka bedelan ayaan leeyahay hablaha Soomaaliyeed dulqaadkooda waa uu badan yahay waana mid qoysaska Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin waxaan gabdhaha Soomaaliyeed kula talinayaa in xagga waxbarashada ay awood saaraan oo ay isku tiirsanaadaan
qoysaskoodana ay u dhagan nuglaadaan si qisooyinkan xanuunka badan oo kale iyo kuwo kale oo ka daran tan gadaal bay ka qurxoonaatay kuwo ka daran aysan ugu dhicin intaas ayaan ku ekeenaynaa qisadii aan idiin soo gudbinaynay anigoo aan Nasarkiin Xaashi Nuure Liibaan aadan cali tan iyo kulantan dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo amaan Allah